عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحجك الصعدة أيا وحي أركنين مركا آدو سو صعدو فرسك آدو سو إرينايا مركا عمر بن الخطاب با يقول وحوري ننكاسي كل أنكو نو صعداي جوك سدبوي وجوجي عمر عيدن كي ننكي أو آدو دالن أو آدو نحسن با مركا عمر سو قاري عمر هرتي سو كدعي عمر با مركا كويري منن عدو إرينيان وعبصونا يا تهي أنكم مغان قلنا مسنين دين لقول يهي أو دين كي بحين كروايي أو أباهن إلا عاوية آياتهي مسنين نف بن آذن سوقويي أو حق دركو السوق دلي باتهي مركز انت منا ميهبو يلي وحان كيمي دبيوري بصراء يا كيمي دا بصراء فما قالكو تال العراق أبا موسى الأشعري هلكا أمير نوغاها هاي هلكا سانو جوجو دنبي إيقا دعي بو دنبي كا دعي محوية خمر بان عبي بيولي لأن أبا موسى الأشعري بان انتو قبتيبو إيقا جريبولي حدكو إمريي هاي تمهينا إيقا حيري هاي فرسنا انتو إيقو قادبو مقالة دي بصري دحمر يو حويري نكا هلا عننا oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yiri wajigeygii biga madoobayay buu marka naftaydii saddex mid bay igu sheekaysay inaan sameeyo imma inaan Aba Muusa al-Ash'ari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imma inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabayaan aan la cabo waxay cunayaan aan la cuno iyo kana aan ka mid noqdo imma inaan adiga ku imaado iga qabatid amiirka muuminiinta مركا عمر بن الخطاب يايد رضي الله عنه إن أديتي مدي إلهي بكوا فجيبولي إن قال أوتكتا هيالين إن أبا موسى الأشعري سجن انتود الأرض متآد شانا هيالين مرد ذلك إسوغا ديبوي لأنه يقول هذا حدا شغاك قبل يا براوش وانقبض بولي ورقد بوقري ورقد نكر عمر مديبين السقيب ورقد وديب السقيب كله أمير المؤمنين عمر اكتسان كسعوداء وكسو سلام عليه وعاد كنت هذا حداد أمير كاغي أنا هاي وقد يكون قرنت هاي وحق أن كقوله أبا موسى الأشعري وقدرين يسب وقد نكا وكو كان دغيسو قابل بسو أمري وصو نقد نكي عمر ولما نكي مسيدين فرس بوسي لعب بوسي ضرب بوسي كلكم مدة ولبنا أوهيي أيود هذا بايبك سعوتك بصراء يوم مركا وقيم أبا موسى الأشعري أو خطبة دينيا مركز أمير كي المؤمنين عمر باي صادري عجيب مستاقي وكسو سلامي ورقد أنا ويسو دي بآخر سبو كيدي ورقد دي بآخر ستي نكا فرس كاكا صار magaaladii aad la dhaxmartay marka hore la dhaxmar aad ku jiraada la fariista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin oo toobad keenay toobadu adoonka Ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco dhan waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtana cafiya anna waan cafiyade Aba Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu sidii amirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii uu sidaa u soo dhaxmariyay waa walaalkiin oo toobad keenay Umar bin Khattab uu tagay Umar buu fariinta inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taadnimadu mas'uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya professor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya Abu Hurayra radiyallahu anhu gaajo daraaddeed masjidka nabiga marka salaada laga dareero ayuu irid nabigu ka baxay ku dhici jiray ninka reer miyiga magaalada Madiina ku cusub ayaa intuu isku dultaaga oran jiray warmaad warantahay meesha ka kax markaa buu oran jiray ma wali Abu Hurayra wuxuu leeyahay wali ma waxaan la jiifay
gaajaan la jiifaa buu yidhi cumar baa ii yimiday markaasaan cumar ku yidhi aayadda qur-aanka halkaa aayadda qur-aanka halkay ku soo degtay cumarow markaasuu abaa hurayra wuxuu yidhi marka cumar aayadda qur-aanka aan weydiinayey garasho la-aanigama yahayn waxay iga ahayd cumar wejigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wejigaaga ku taalla intuu eego ha garto oo ha ku yidhaahdo abaa hurayra gaajaa ku haysay kaale ila soo xeraado ila soo cashee imuu fahmin aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi halkii ku soo degtay haddana abubakar baa yimid abubakar waadna bal aayaddaa iiga jawaab halkay ku soo degtay abubakarna ima garan oo ima fahmin aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi waa abaa hurayra baahi baa haysa 3 maalmood iyo 3 habeen afkiisa cunto ma gelin haddana abibakar iyo cumar inuu baahi u sheegta buu ayuu ka qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtaray moogta soo ma haynta soo ma xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegayo mashruuc gaalo innakaba naguma socdoba xanuunkaas naguma socdo cuquubo meel kale ku socota haddaad u yeerata ka waran adigu halkii beryihii hore dadku odhan jireen balaayo markay maqlaan meleblayo balaaya ku dhacday ayaa laga alla beri jiro la odhan jiray balaayo baydh iminkana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo baydh xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi muuminku balaayo ma sheego muuminku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amaa binicmati rabbika faxadith nicamta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo leh ilaahay baa waxaa oo dhibaato igu sameeyey ayaa iga qabta ayaa ilaahay kaa qaban war mahayad baa ilaahay kaa qaban bal sheeg muuminku balaayada ma sheego abaa hurayra gaajadiisii cumar uma sheegin abibakarna uma sheegin uu qarsanayey laakiin wuxuu bal siiro farsamo leh ayuu wejigaaga bal kolkay eegaan ha kaa dareemaan oo ha ku yidhaahdaan abaa hurayrow marka horeba ahlu sufaad ahayde oo magaalada madiina qareen iyo qarabo kumaad lahayne waad gaajootay ibna mari ha ku yidhaahdaan iyo kiina may fahmin walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu igu soo baxayba halkaasuu nebigu ka fahmay halkaa buu ka fahmay yaa abaa hurayra kaale caawa aniga ila soo cashee buu ka yidhi kaale ila soo cashee koob caanuu nebigu ugu yimid reerkiisii koob caanaa maxaa yaalla koob caanaa ku yaalla nebi allow yaa abaa hurayra maskiidkii ku noqo ahlu sufiyo dhan inoogu wadeer caawa caanaha inala cabaane waa koob caanaa abaa hurayra nebi maxamed hadalkiisa maya ma odhan karo laakiin niyaddan ka idhi buu yidhi koobkan caanaha adigoonba kugu fiicnaaye miyaa lagu dhiiba ha ku cibaadaysatid 2 habeene ahlu sufuhuna waa raggaad garanaysidee maskiidka deganaayo ayaga laftigoogu maalmahayda waxba cunin dee kollay nebigu kolkuu u yeedho ay yimaadaan ay fadhiistaan aduu kooradana abaa hurayra oo caanaha qaadoo siisii ka u horeeye la siiya himin buu laakiin nebi maxamed hadalkiisa maya may odhanayna way u yeedheen uu u yeedhay aqalkii markay fadhiisteenna sidii uu ka malaynayay meesha u dhacday yaa abaa hurayra buu nebigu uhi koobka caanaha qaad ninka ugu horeeyana u dhiib ha kana qaadin buuri ilaa isagu kuu soo celiye mooyaane waa koob caanaha ragga loo yeedhana waa ragee ahlu sufa kii horeeya markaasuu u dhiibay waan eegay waa caano halkoogii jooga kii kalean u dhiibay halkoogii 90-70 nin iska dhe markaasuu nebigu yidhi yaa abaa hurayra ayaa hadhay ii sheeg yaa rasuulallah adigii aniga hadh fadhiiso aduu cab waan cabbi ku celi haddana waan cabbi ku celi ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meelay caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan idhi buu yidhi deedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay hambadii buu nebigu cabay alayhi salatu wasalaam waxaan ka wadaa fuqaradoodu baahi way qabeen laakiin baahidooda ma sheeganayn baahidooda iimaankaa daboolayay safwaan binu umaya ayaa cumayr binu wahab ninka la odhan jiray ayagoo markaa labadooduba mushrikiina
ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدي دقال كي بدر باللغا سو نقضي تضباطن قالدنا waa laga laayay toddobaatan gaalo ana nabigu waa qafasho uu xiro uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar ibn Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa toddobaatan la xiray Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar ibn Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeeladan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankaygiiba iga xidhan oo itu saban oran lahaaye Muhammad aniga soo khaarijin lahaa buu Safwan bin Umayya ayaa ka faa'iideysto yiri ma sameyn kartaa haa waan sameyn karaa ciyaalkaagan aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raaca buu keen waa labadoodo kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysan waa taqaanaa la 400 kilometer وصو سocday aalaadkan zamankan imika isku turtuurayna Facebook iyo WhatsApp iyo balaayajin ma jirin zamankaas وصو socday Madiina soo galay Umar ibn Wahab isagoo seeftiisa jeeni qaaran mar ali marka Umar ibn Khattab baa yiri Umar ibn Wahab ha shaytaan min shayatin Quraysh weeyane seeftiina waa ka jeeni qaaran ee qorta ku sitee ordo nabiga ilaaliya buu nabiga naag joogo nabiga ka ilaaliya sallallahu alayhi wasallam sharqu buu socday khayr ma socday markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu yiri nabi Allah Umar ibn Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu yiri soo galiya loo soo galiya xaadu timidee buu ka yiri waxaanu imiday inankaygi oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay oo ka wada hadalno markaa uu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hada wuxuu qabbaha Allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii Badar iyadoo tan wadano Saudi 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xiray ma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaad u socoto aniga kaaga warrami oo fariista adigiyo Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri hadan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto hadan heli lahaa Madiina intoon tagaan Maxamed aan kaga soo taqallusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaad u socotay kaabu haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana iima dili kartid ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga waramay Allah baa uga waramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu Jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waa ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayn tawxiidka ay qirbu ku halkii buu ku qiray ilaahay ka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaadan in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma gacantaas ka haysan xabas ilaahay isaga ka taliya koonka tabbat yada abi lahab wa tab
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. امرأة أبي لهب أيها النبي نوتمد عليه الصلاة والسلام يضع بقى حسدته أبي بكر بيوتمد وهل كان فردية رسولنا واقف فردية صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسولك لنا عسكو هيان مركز إلى ذهي أبو بكر صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونتا وقبل يجي يقول صوت دري قبل بقرآن كواي ستاموت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا أنرك لها بيتري بقى حيسر ونستوى ماذا حن بشكسين لها بيتري مركز إسكان نقطه أبو بكر نبي يا رسول الله ما هناك أركين ما أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادر يقول إنه هذا هو حكوا أركا إيش هو حكوا أركا من لنا هاي ما يأمر كلا هو حكوا أركا دكتو حكوا مغلا ما دكتو أمر كلا هو بانتاين مقاشو نقطة دوينة سعوت إله أمر كيسه وباهنتا خالق وإله مركا إله معرفة دي سوا واجب قف كسر مسلم على قرب إله ونبو قرطو تصرفاتك عالم كإله بس كله marka shayga ugu horeeya bini aadamka lagu waajibi waa ilaahay macrifadiisa diintuna nasiixadeedu halkaas ay ka bilaabanta lillah kun abdan lillah ilaahay adoonkiisii oo dhaba noqo khulasatul qur'an marka culimadu ka warameen khulasatul adyan وحلي وحي الدين سماده كسو دغتay oo dhan khulaasadii waxa laga dhigay quraanka kariimka quraankii kariimkii baa la soo khulaaseeyay suuratul faatiha khulaasadii quraanka laga dhigay suuratul faatiha ayaa la khulaaseeyay labada aayadood ee culimadu isku keeneen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in خلاص qasamtu salata bayni wa bayna 'abdi ilaahi jalla wa ala wa ka quraanka kulaha salaada waanu qaybiyay anigii adoonka ayaa kala qaybsanay oo salaadu وسورة الفاتحة مقعيقة ويان سورة الفاتحة هذا صلاة بالليلة فاتحة الليلة القرآن بالليلة سبع المثاني بالليلة سورة داس وسورة ونبي قولي والذي نفس محمد بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها إله محمد أبو ريما قدرته سورة داس سورة لمدة إنجيل نكم يسودقين فرقان نكم توراة نكم يسودقين قرآن كريم كان سورة لمدة كم جرت برسولكم علامة ابن قيم الجوزي رحمه الله وحيري قرآن كردن بمركان اغني وحاو شرح يا سورة فاتحة سورة فاتحة وحي يدنا كسو ururtay إياك نعبد وإياك نستعين ومركو أضونك أوليهي بسم الله الرحمن الرحيم مركا ترادد الحمد لله رب العالمين مركو أضونك يرادو إلهي بالحمدني عبدي أضونك يجيب يقوم مهديي الرحمن الرحيم مركا ترادنا أثنى علي عبدي إلهي بالأضونك يجيب أماني مالك يوم الدين مركا ترادنا مجدني عبدي أضونك يجيب وينيي إياك نعبد وإياك نستعين مركا ترادنا إلهي بالا هذا بيني وبين عبدي تاسياني أضونك نقد حيسا الحمد لله رب العالمين مركا تري حمدني عبدي إلهي بالا أضونك يبقى حمدي الرحمن الرحيم مركا ترادنا الرحمن وعليه الرحمة ديسو أدونك إنت اللي جوكتي خلق قردن أي وذا قاعدين ويان الرحيم ان حريستي سبنك قيامنا مؤمنين تخاصك وقدغي ويان اثنى علي عبدي اظنك وي اماني بالهي ليهي مالك يوم الدين مركا ترادنا يوم الدين ويوم البعث والنشور مالك الهي ملكك يا طلب اسكلا هايو مركا ترادنا وحو الهي ليهي مجدني عبدي اظنك وي وينيي اياك نعبد واياك نستعين مركا ترادنا الهي باكل هذا بيني وبين عبدي تاسي اني اظنك نغا دحيسا وهاجاga adiguna ay caabud oo adoonkaygi oo dhaba ii noqo anigana kaalmahayga gargaarkaaga igu daa sidaan doonaya ii yeel sidaa doonaysan ana ku yeelay sirta noloshu halka bay ku jirtaa dhoofa ka raadin qaxootiha ka raadin hay'ad loo shaqo tagana ka raadin wadankeena ugu shaqo fiican waa ka hay'ad u shaqo taga
hay-ad buu hebel la shaqeeya hay-ad odaygii islaantii heblaayo labadoodii wiil jaamacadday qalinjabiyeenoo hay-ad baa markiiba madaxa qaadatay madaxa horey ahayd uu ka qaadatay yaa miskiin cabdillaahi bnu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruum uu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيف أقول عيدا كنك وتا والنبي محمد أرضي ريسي أرضي كمدا حنقدلين نصرانية دو بندق وحلي وحو الدين تاكو دور سكرنا هلا صيو سن الصارة إسلام كأقول سعوتا وسد عن سبيل الله يقول نقضو لكن وحينا كور قبل نبي محمد صحابة ديسو إيمانكو عرب كما دولي الله إيمانكو قلبكو دولي الله قلبكو دولي الله قلبك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ما هم من عرب كدولي الله من ما ديال لا دافسن كرماها ومن قلبكو إيمانكو فريستي وين الله كو تعلق سن هو يا بقرك ما كلها إن النصرانية ده سو قلي boqortooyadeedana kala barkeed baan ku siinay markaas uu qoslay wuxuu boqortooyadaada oo dhameystiran oo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato hadii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelay buu kay wallahi ma facaltu buu darfata ayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxa soo mulkiyeena qaado ma yeelay buu boqorkii baa ku yiri waan ku dilaynaa دوابا نيحدنا هاي هذا يدل سر ونيحدنا إحدى الحسنيين بيسوق يعني يكو إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكيني هلان وإلهي قرقار قيس الله بلن قادر عنده كو أركان إما إن الشهادة هلان فردوس يتقان لو شهاد بيد وحبوهم أركان وحال الله السماء مركا بغركي أمر وحكو بحيي دريوا وين وصليد أو كركرايا ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqon nabi ilaahay markaas la qabto labadii nin basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliido karkaraya loogu tuuray ka warrama subhanallah isagii baa markaa la dul keenay oo xidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii oo hay gaalow markaas uu ma gaaloobayo damaxaad loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dhariga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaasoo ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halka la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoonan haysano ka hooyaya buu kay naf kaliya maaha kuma yalna fa in la igu abuuri lahaa oo mid walba halka intoo la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu kay boqorkii baa kan dilgiis wax noo tari maaye haska sii dayno waay sii daada ma kula tahay buu kay madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii dayne markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada sagii bas la suurayst shardi buu ku xidho wuxuu hadii muslimiinta ila xidhan aadii sii daynaysid haa waan ka dhunkan hadii kala ka dhunkan ma buu ku yiri markaas uu xagaag iga dhunko markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada anoo asxaabtii nabi maxamed kamida ragga uu sii daynaya Soomaaliya waa ka dhunkan ilaa bariba jihaad baan ku soo celinay kala bixi mahina ajiib asxaabta rasuul ay soo galeen Umar ibn Khattab baa soo dhaweeyay inuu gaal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay baa la yidho raggii la socday baa Umar ku yiri Abdullah ibn Hudaafa ha dhunkano ha salaamino ha soo dhaweyn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday inakana hebel dibadda u baxay hebel dibadda u baxay hebel hayad buu la shaqeeyaayo iskugu toostay
gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan gaalada dhulkooga inaad tagno ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa Umar kule gaal buu madaxa ka soo dhunkaday ha salaamin Umar baa yiri balukaadii ha wareystay sidee ku dhacday inaad nin gaal madaxa ka dhunkata wuxuu iyaka ku soo daayay buu yiri si markaa uqdadii yareeda qalbiga u gashay Umar uga biyay buu yiri haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra's Abdullah ibn Hudafata wa ana abda'u bidhalika buu yiri qof kasta oo muslima waxa xaq ku abuuri Umar in maaragtana Abdullah ibn Hudafa uu madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yiri anigana ka bilaabayo ilaahay bay ku xidhnaayeen islaamnimaday ku xidhnaayeen addoommo waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonayay markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay sidii doonayeen marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladhiina aamanuu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي الذين آمنوا كو إلهي رميي قلوبتهم طاعة إلهي ذكر إلهي أي كو حصل إيسو إلهي بايد ألا انتبهوا إلهي بايد نو نصلحين إلهي بايد نو يريا إلهي بايد نو خير ميريا ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا ومن أصدق من الله قيلا إلهي بايد كو ورما يوكله warqalbigii naas wax kala ku xasil maayo aniga macrifadadu qalbigiinu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaysta qalbigu quraanku ku raaxaysta qalbigu dhikriga ilaahay buu ku raaxaysta qalbigu taacada ilaahay buu ku raaxaysta naam nina aymada muslimiinta kamida ayaa oran jiray khamsun min dawaa'il qalbi shan ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawat alqur'ani bitadabbur quraanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur iyo qiyaam al-layl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadarru inda as-sahar iyo waqti as-sahar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wa ala lana munaajoodo wa khala'u al-badni iyo calooshaada mar walba badnaata wa kathratu as-siyam bi culmadu leeyahay inuu qofku soonkiisu bato wa mujalasatu as-salihin dadku war wanaagsano la fariisto shantaas ay culmadu raadin qalbigeeda weysa تلاوة القرآن بالتدبر كان القرآن ما شاء الله ونسك آخرين تدبر كيف أنا قمق أصحاب رسولك رضي الله عنهم لقى يا أبا هل آية القرآن سدها بينك أقول علينا يا أبو برياجي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سفيان الثوري رحمه الله آية القرآن كهبينك مركو صلاة الليل كي حدي مركو قاري وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وعيسى إلهي كملينين أي كلا كل ما بنك قيامه هدو لها خير بان وطا ما خير قيسي ماها أرنتو يكوين تاي صلاة بان وطا صلاة دوالو بدا يا لا شك لكن مؤمنكو هلك أمركو بنك قيامه إلهي هرجوك صدو صلاة يسون قيسي إيجي ماي إلهي الرحمة دي صبو ما أنت إيجي يغفك مؤمنكو إلهي الرحمة دادون بوليه آيات القرآن كواغو غبريه أبي بكر الصديق رضي الله عنه مركو نبيgeenu xanuunsado xanuunkii la dhacay ayaa nabiga lagu yiri salaadii baa taagan nabi Allah markaasuu nabigu Abu Bakar u sheegay umada salaada ka bixiye Aisha radiyallahu anha oo agtaagnay nabiga ayaa ku tiri inna Abu Bakr rajulun raqiiqun Abu Bakar waa nin qalbi jilicsan weeyaan ida qara al-Qur'an ghalabahu al-buka haduu quraanka akhriyana oo hintiisa ayaa quraanka ka qalib noqotay وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه صلاة الليل كي هبينك مرقو مسجد النبي صو غلي wuxuu arkay inay yar oo suurada tuur ku tukanaya qiyaam leelkii quraankiisii buu dhageystay markuu gaaray yarkii yara inna cadaaba rabbika la waaqi cadaabka rabbiga waa kii dhici doona weeyaan aayada Umar markii uu gaarayna dhulku ku dhacay Umar bin Khadaab intuu la qaaday ayaa gurigiisii la geeyay bil ku dhanbuu xanuunsana xanuunkiisa meeshuu kaga yimidna lama ogeyn مقداد رضي الله عنه صحابي لو رجل مقداد بن الأسود هبينكي مركو حاسكيس أكسر حضبي تري
sidaasuu u galgalan jiray sidaasuu habeenka u galgalan jiray sidaas markaasay ku tiri war maxaa la galgalan maad bugtaa maad seexatidaa markaasuu odhan jiray cabsida xasuusta aan xasuusanaya naarta jahannama ayaa hurdadii raaxadii iga qaaday buu odhan jiray yakhaafuun qur-aankay akhrinayeen iyaku laakiin tadabbur bay ku akhrinayeen tafakkur bay ku akhrinayeen laga yaaba hal aayadoo qur-aana habeenkaa dhan inuu ku soo jeeday nabigeennu calayhi salaatu wassalaam waa kii abi bilaal baa u yimid salaaddii markay gaadhay yaa rasuulallah salaaddii baa lagaa sugayaa waa nebigoo lilmada ka daadatay maalintaas garhkiisii intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wejiga uu dhulka ku hayayna way qoysay markaasuu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalaytoola aayadahan qur-aanka igu soo degay weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar ina fii khalqi asamaawaati waalardi laآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات إلى آخر سورة آل عمران آياتها سحالة يقصوا دقيب النبي يقولي نكا آياتها أخريا إن أنت تدبرين أنت تفكرين كاسوا خسارة ورسولكم يقولي تدبر صدح عمل مركز هاي سهدات قلبك خشوعات كوي إذا بعلماء دولادين قلبك سؤول لسيه يرضى صدويه quraanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid quraanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexda marxalo markaad ku jirtid hadii ilmadu ay ka daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimadu leeyihiin qalbigaas uu bukaaye qalbi xanuunsan ilaahay alla urtagin قيام الليل وسماء الصالحين إن هبينك إلا كعو الله النسيه كل جن كي كان الله بدس كي صفات ونكسر نقلها الله لين نسوي سدنيا مي هذا الكانوا حنوجه الله يا إني أنا نقول شيء ما دين بندونا يا إيمانك وحنوجه الله إيمانك إنه يزيد دونا يا صلاة وحنوجه الله يا صلاة حقيقة إلهي نسيان دونا يا صفاتك ونكسر وحنوجه الله يا صفاتك إلهي نسيان دونا يا والله وما فريس دينا وعدي أنجو وأنا لك أفرس نفسي دينا وعدي قيام الليل حسن البصري رحمه الله من أسمر أبوها ولكن وجهك سمور كبحايو مركز سأل يقول يا شيخ يا أبا سعيد بالقول يا أبا سعيد يا أبا سعيد واسدي بالقول دتك واتكمر وينتهي وعلى ساعدها أي هردان أيان إلهي لم يناجود أبو لانكم مضان سوجي يقولون النور ها ساعدها دتك أي هردان كعو ولو لا برك على نقطة لا برك عتكو ولو ركعت وتر إذا كنت ضرب وتر هذا دبوا دقو مرقاسا شرفاء الناس دتك مال قبينا ذا هي دتك مدح ذا هي دتك تجارته أي دلين هي وجهاء الناس بمجري مجلس كيسة وعلى يقول يا حسن يا أيها الإمام dadku agtaada maxay ka soo doonaan baa lagu yiri madaxda oo dhan baa ku imanaysa wuxuu yiri waxay haystaan ma ka kaaftoomay waxaan haystana waa u baahdeen buu yiri waxay haystaan baan macna adduunyadooda ma qiimeeyo anigu lacagtooda ma qiimeeyo qabyaaladooda ma qiimeeyo siyaasadooda ma qiimeeyo anu ilaahay baan qaabilay cilmiga ayaan u jeestay aakhiradan u jeestay diintan u jeestay jannadaan u diyaar garoobaya naar baan ka cabsanaya ilaahay xaqiisa u dhaqaaqay marka waxay haysteen marka faraha uga qaaday waxaan haystana iyaga u baahday والتضرع عند السحر مؤمنك waxa laga rabaa habeenkii saacadaha waqti saxarka inaad ilaahay la munaajaat فما حي مناجات يا الله الباب كست u xidhmay albaabkaaga furan ilaahuna xariistaada u baahna waa saacadaha ilaahay jalla wa ala uu nabigu sheegay samada adduunyadu yimaada nuzulan kama yaliqu bi jalalihi markaasuu ilaahay oranaya ayaa wax weydiisanaya hansiiye ayaa toobadkeena toobadahan ka aqbale ayaa dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafe hadaa saacadaha kacna ka waramo ilaahay barino soo baahi malihin saacadahaas مناجات هبن أيو النبي صلى الله عليه وسلم مركو قيام كي وبلابي أيو النبي يقول لبا آيادود أو كليا سدو وعل علينا أيو وقود الله رسول
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم لبدا آيادات آيادنا waxay ku jirtaa suuratul maa'ida awaakhirkeega aayadna waxay ku jirtaa suuratu ibraahim laba nabi ulul azmiya hadalka banka qiyaama ay ku orani doonaan ilaahay hortii tabaaraka wa taala ayuu nabi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam banka qiyaama marka la joojiyo isagii hooyadii ee la keeno reer bani israa'iil oo wixii isaga dabadii yimiday oo dhan isagii hooyadii qaarkood ilaahay ay ka dhigteen ay caabudayeen ayaa banka qiyaama la keeni dadna waa ka ilaahay weydiini doona orani doona yaa ciisa ibn maryama a anta qulta linnaas ittakhiduni wa ummi ilaahayn min duni illah nabi ciisa ya ciisa hatta ya nabi allah la oran maayo ya rasuulullah la oran maayo ya ruuxullah la oran maayo ciisa ibn maryama war ya ciisa ina maryama baa la oran doona maada ku yiri reer bani israa'iil aniga hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigto naabuda maada ku soo yiri qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alayhim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم